hadda waxaad fursad u haystaa inaad wax walba maqashaad ii sheegto iyo wax walba oo ku dhibaya isla markaasna waxaan ku dhahay dhakhtar waxbaan kuu sheegayaa laakiinse waxaan kaa codsanayaa in aadan sirtayda faafin waxa uu dhahay dhakhtarku السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قيمها بدن وان السلامي waxaan iga sheekayn doonaa maanta qisadada qaybtii labaad anigu waxaan ahay cali qisadada qaybtii koowaad waxa inoo marisay ninkii darawalka waxa uu noo sheegay halkaas inay goob ku taalo halkaasna aan ku soo nasano isla markaasna anigu waxaan ku dhahay dadkii meesha u socday ha tagin halkaas waa meel halisa anigu ma garan karo xilli la dhisay maxaa yeelay saaka markaan halkan maray halkaas banaan ay ahayd darawalkii saaka uu wadayna waxa uu sheegay halkaas in habeenka sis lagu cuno waqtigaas waxa soo dhaqaajiyay ninkii darawalka ahaa waxa uu dhahay adigu maxaad ka hadlaysaa maxaad ka sheekaynaysaa kuma fahmine dadka maxaad saa ugu hadlaysaa halkaas ku soo nastaan halkaas waa meel dhisan oo caadi ah laakiin adigu waxaad aragtaan uu garan maayo ee iska daa dadka ka soo nastaane arintaas markuu sheegay ninkii darawalka ahaa anigu hore ayaan uga soo baxay dadkii isla markaasna maskaxdayda waxa ka dhex guuxay su'aal aad u fara badan waxaan isweydiinayay sidee ku dhici kartaa in si dhaqso ah loogu dhiso meeshan halkan Suusaaka ma ahayn meel banaan maxaa ka dhacay halkan talow maxaa ka jira waxaan bariyay markaa rabbiga waxaan lahaa rabbow i badbaadi caawa meel kale ayaan soo galay rabbow naftay i badbaadi ayaan ku ducaysanayay isla markaasna aad ayaan u fikirayay waxaan isweydiinayay halkan caawa ma ka badbaadi doontaa mise halkan ayaa lagu cuni doonaa isla markaasna dadku waxay u dhaqaajinayeen inay tagaan goobtaas maamadii ayaa hadashay waxay ku tiri darawalkii weylkaygiyow adiguna maadna raacin si aad noola soo nasato laakiinse waxa uu dhahay darawalkii maya aanu idima raacayo maxaa yeelay gaariga ayaa laga xadayaa gaariga ayaan ilaashanayaa waan ka xumay nasiib daro waan jeclan lahaa inaan raaco laakiinse taasi suurtagal ma ahan waxaan idin ka codsanayaa inaad si kii cafisaan khayr ayaan idin rajaynayaa isla markaasna dadkii waxay dhaheen waa si wanaagsan waxayna u dhaqaajiyeen goobtii uu tilmaamay halkaas ay u socdeen laakiinse anigu ma aan raacin waan ka hadhay isla markaas waxaan ku daba dhuumanayay geed si aan u ogaado ninkan darawalka waxa uu samayn doono waqtigaas anigu geedka ayaan ku daba dhuumanayay ninkii darawalka gaarigiisa ayuu xogaa ag taagnaa isla markaasna markay dadkii fogaadeen dhinacyada ayuu iska eegay waxa uuna bilaabay inuu gaariga qaybtaba furo markiiba waxa uu soo saartay taayir isla markaasna waxa uu doonayay inuu taayirka kale ku bedelo anigu waqtigaas waan u yimaaday waxaana ku dhahay adigu khiyaanoole ayaa tahay maxaad sida noogu samaysay soomaadan lahayn taayir kale ma haysto adigu khiyaanoole weyn baa tahay isla markuu arkaaniga waa uu naxay darawalkii waxa uu dhahay ninkan xaguu ka yimaaday yaa u soo sheegay inaan halkan joogo maxuu iga rabaa anigii muyga orhan bay la socday anigu waxaan ku dhahay maxaad beenta noogu sheegaysay sodiga qofka weyna maxaad sidan u samaysay sodigan taayir haysta waxaan ku dhahay adigu beenta maxaad noogu sheegtay soomaadan lahayn waxba ma haysto soomaad lahayn waad ii hagaajin lahaa haddaan taayirka la haysto kan aad haystaa muxuu yahay adigu maxaad noo khiyaantay adigu khiyaanoola ayaa tahay waxaan rabaa inaad igu celiso meeshaydii wax lacagana kuma siinayo waxaana kugu waajibaa inaad hadda qaado isla markaan sidaa ku dhahay waxaan maqlan qiilo aad u badan halkii dadka loo tilmaamay u sii socdeen ayaa qiilo aad u badan ka socota olol ayaaba ka baxaya isla markaas waxaan ku dhahay darawalkii maxaa dhacaya sidee wax u jiraan waxa uu dhahay soo fuul gaariga aan iskaga tagna meesha waxaan ku dhahay oo dadka meesha maan kaga tagaynaa mise dadka ayaan soo badbaadinaynaa halkaas mid dadku gubanayaan waxa uu dhahay haddaad sida ugu dhaqsiyaha badan la u soo fuuli weyda gaariga adna dadka waxaa ku dhacay wax ka daran ayaa kugu dhici doona dhaqso soo fuul gaariga aan iskaga tagna meesha anigu waqtigaas waxaan ku dhahay maya dadka aynu soo badbaadinna horta intaanan tegin waxa uu dhahay maya taas ma dhici karto mana soo badbaadin karno dadka warka badan jooji soo fuul gaariga isla markaas anigu aad ayaan u naxsanaa gaariga ayaana soo fuulay waqtigaas su'aalo fara badan ayaa maskaxda ka dhex guuxasay waxaan isweydiinayay haddii aad la socon lahayd dadkaas saacadan ma dhiman lahayd ma noolaan lahayd dadkii maxaa ku dhacay talow dabkani muxuu yahay su'aalo fara badan ayaan isweydiinayay waxaan isweydiinayay dadkaasi ma noolaan doonaa talow mise way guban doonaan isla markaas waxaan ahaa mid aamusan ninkii darawalka ahaa ayaa ila hadlay waxa uu dhahay ninkii darawalka ahaa maalin kasta dad ayaan u keenaa dadkaas way igu adeegtaan waa dad aad u xun anigu ma aqaano waxay yihiin laakiinse mar walba dad ayaan u keenaa talow may layn doonaan dhammaantood mise qaar ayay badbaadin doonaan anigu waan naxay waxaan ku dhahay
adigu yaa tahay iyagu laakiin siyay yihiin bal isu kay sheeg. waxa uu dhahay ninkii darawalka ahaa, halkaas aanu dadka u dirnay waxaa degan jin, isla markaasna maalin walba dad ayaan halkaa ugu geeyaa. waxay igu dhaheen haddii aad dad noo keento adiga ayaa naga badbaadiya, waddadana si nabad leh ayaad u maraysaa, laakiinse haddaad noo keeni weydo adiga ayaa baaba'aya. halkaas subaxii waa ay burburiyaan, habeenkiina waa ay dhisaan. anigu waxaan ku jiraa heshiiskooga, kamana bixi karo ballantooda, isla markaasna halkaas ayaan wax walba u geeyaa. dadkaasi waa ay igu shaqaystaan. markaan hadalkiisa maqlay aad ayaan u naxay, waxaana ku dhahay adigu dembiile ayaa tahay, askarta ayaana kuu sheegayaa, maxaa yeelay dad ayaad maalin kasta halkaa kulaysaa miyaa? adiga lagu cafin maayo, dembiile weyn ayaa tahay. waxa uu dhahay anigu halkaas waxaan geeyaa maalin kasta dad aan waxba galabsan, isla markaasna halkaas ayay ku baaba'aan si aan anu noloshayda u sii wato. haddii aad askarta ii sheegtana aniga kuwaasi waa shayaadiin, waa inay qarinayaan, isla markaasna wax raada ma arki karaan. halkaas ay degan yihiin waa ay baabiinayaan. askartu marka ay waayaanna adiga ayay ku dili doonaan. haddaba waan kuu digayaa bad aadan ku dabaalan karin, cagaha la soo gelin. kuwani waa shayaadiin, ha soo gelin afaarahooga. haddaba waa haystaa dignintayda. saacado badan kadib waxaan soo gaadhay gurigaygii, isla markaana waxaan ka degay tagsigii. wakhtigaas waxaan u cararayay dhanka fadhiga, isla markaan fadhiistay fadhigana waxaan isweydiinayay su'aalo fara badan. waxaas lahaa ninkan askarta ma u sheegtaa mise waad iska daysaa? anigu xilligaa waxaan fadhiyey fadhiga, isla markaasna waan fikirayay, su'aalo badan waan isweydiinayay. hooyadii ayaa ii soo gashay iyadoo murugaysan. waxay dhahday hooyo maxaa ku soo celiyay maanta? shaqadii miyaa lagu soo diiday? anigu waxaan ku dhahay hooyo maya, shaqadii layma soo diidin, laakiinse waan daalinahay, waxaan rabaa inaan waxoogaa nasiimo qaato, ee wakhti ma aysiin kartaa hooyo? hooyadii markii arrintaa maqashay waa ay naxday. waxay dhahday wiilkaygiiyo waxaad ku dadaashaa mar walba rabbigaa inaad tala saarato. waxaan ku dhahay hooyo taas anigu waan la socdaa, mar walbana rabbi ayaan tala saartaa, aniga ayaa taas ku ogtahay hooyo. waxay igu dhahday hooyaday adigu waxaad tahay wiil wanaagsan, waxaana kuu rajaynayaa shaqo wanaagsan. wiilkaygiiyow adigu waxaad tahay mid baariya, waxaan kuu rajaynayaa adduun iyo aakhiraba wanaag. hooyadii waa iga sii baxday isla markaas. wakhtigaas anigu waxaan aaday dhankaa iyo hurdada, isla markaasna waxaan rabay inaan seexdo, waxoogaa nasiimana aan qaato, laakiinse nasiib daro wax hurdaa waa igama weyday. maskaxdayda waxaa ka dhex kuuxayay buuqii iyo qayladii iyo dadkii lagu gubay goobtaa, isla markaasna dhagahayga waxaa ku soo dhacayay qayladoodii. hurdo ayaan iska raadinayay wakhtigaas, laakiinse waa igama weyday. subaxii marka la gaadhay waan soo kacay, hooyaday ayaan u tegey. waxaan hooyaday u sheegay in aanan goobtaa loo shaqo tegi karin. waxaan ku dhahay hooyo meeshaas looma shaqo tegi karo, laakiinse uma aanan sheegin sababta iyo dadkii waxaasoo dhan ugu sameeyey. anigu wakhti badan waxaan ku jiray xaalad aad u qasan, isla markaasna waxaan raadiyey dhakhtar. waxaan soo qaatay laabtoonka, waxaana raadinayay dhakhtar fiican inaan helo. waxaan helay dhakhtar wanaagsan, isla markaasna waxaan imaaday dhakhtarka. wakhtigaas dad badan ayaa iga horreeyey. meel dambe ayaan fadhiistay, waxaan isweydiinayay su'aalo fara badan, waana fikirayay. waxaas lahaa dhakhtarka ma la wadaagtaa wax kastood aragtay? haddii aad la wadaagto dhakhtarka wax kastood aragtay, isla markaana xabsiga lagu dhigaa ama lagu dhahaa wax kastood aragtay sheeg iyo cadeymo fara badan. anigu su'aalo badan ayaa isweydiinayay. wakhtigaas waxaa la gaadhay wakhtigaan u geli lahaa dhakhtarka, isla markaasna dhakhtarka waxa uu dhahay hadda waxaad fursad u haystaa inaad wax walbood maqashaad ii sheegto iyo wax walba oo ku dhibaya. isla markaasna waxaan ku dhahay dhakhtar waxbaan kuu sheegayaa, laakiinse waxaan kaa codsanayaa in aadan sirtayda faafin. waxa uu dhahay dhakhtarku waa caadi, annaka mar walba bukaanku waxay noo sheegaan siro aad u muhiima, laakiinse cidnan lama wadaagno. ii sheeg waxaad ka tabanayso. waxaan ku dhahay waxaa laga yaabaa inaadan rumaysan waxyaabahan kuu sheegi doono, laakiinse waxaan kaa rabaa inaad si fiican ii dhegaysato. dhakhtarkii waxau dhahay waxaad ii sheegayso waxay ka muuqdaan indhahaaga, isla markaasna waxaad tahay mid aana seexan, oo wejigaaga waxaa ka muuqda hurdo la'aan iyo dhibaato fara badan. ii sheeg waxaad ii sheegayso si aan kuu caawiyo. waxaan uga sheekayey, isla markaas aan bilaabay sheekadayda. marka uu dhegaystay dhakhtarkii sheekadayda waa uu yaabay. waxauna dhahay adigu waxaanoo dhan waxaa laga yaabaa inay kuu sawirmayaan, laakiinse waxaad tahay qof xanuunsan. waxaan kuu qorayaa daawooyin, isla markaad qaadato daawooyinkaas waxaan rajaynayaa inaad caafimaaddo. waxaad ka sheekaynaysana inaad iska ilowdo. waxa ugu dhahay dhakhtarkii naftaada waxaad ugu sheekaysaa inaad adigu xanuunsan tahay, taas isku qanci. anigu waxaan ku dhahay dhakhtar
maxaad saa u odhanaysaa anigu ma been baan kuu sheegayaa maxaad iga been abuuranaysaa anigu ma xanuunsanayo laakiinse wax kastaan kuu sheegay maxaad iskaga indhatiraysaa aniga ayaa indhahayga ku arkay laakiinse dhakhtarku wuxuu dhahay maya taasi maaha mid soconaysa waxaan oo dhan waa beentaada waa waxaad mala awaalatay waxbana kama jiraan adigu waxaad tahay qof xanuunsanaya daawooyinka ayaana kuu qoraya daawooyinka aan kuu qoraya hurdo ayay ku siinayaan islamarkaana waa seexanaysaa habeenkii waxaan oo dhan oo malaawalna waad ka tegaysaa anigu wakhtigaas waan fikirayay maskaxdeedana buuq ayaa ka socday su'aalo fara badan ayaan isweydiinayay waxaan isweydiinayay maxaad ka soo doontay dhakhtarkan baas dhakhtarkiina waa dhakhtar xun kuma rumaysanayo wax kastoo aad u aragtay been ayuu ka soo qaaday bal maxaad ka soo doontay dhakhtarkan islamarkaasna waxaan go'aansaday inaan iskaga kaco meeshaas waxaan rabay inaan iskaga tago meesha waan istaagay islamarkaasna dhakhtarkii ayaa ila hadlay waxa uu dhahay fadhiiso daawooyin ayaan kuu qorayaa laakiinse anuu ma aan dhegaysan waan iska dhaqaajiyey dhakhtarkii ayaa iga daba hadlay waxa uu dhahay istaag halkeed ku socotaa anigu waxaan u degdegay dhanka albaabka waxaan rabay inaan hore u baxo asxaabiga qisadada maanta halkaas ayaan ku daynayaa qaybtii labaad qisadeedu weli ma aysan dhammaan qayb saddexaad ayaad waxyaabo fara badan ku ogaan doontaan waxaan rajaynayaa inaad la socon doonto qayb saddexaad muuqaalka haddii aad waxuun ka faa'iiday leegta saar una sii gudba asxaabtaada qiimaha badan si aan u helno saaxiib wanaagsan sida adiga oo kale inta aan iska imanno qayb saddexaad waxaad iga tegaa sidaas iyo ammaano allah